بسم الله طبعا كان arrimood ee soo socota waxa ay dhammaan ku salaysan yihiin waayo aragnimo shakhsi ah iyo wax aan anigu dareensanahay ee ma aha wax biyaba kama dhibcaan ah ama qof walba uu dareemi karo ama qof walba uu sidaas oo kale aaminsan yahay tobanka sifo ee aan ku jeclahay dadka Soomaalida guud ahaan mujtamac ahaan ayaa ah kow muslimnimadu waa nimcada ugu weyn ee aan haysano laakiin aanan ogeyn waxaana uun kali ah oo dareemi kara qofka dadkiisii ama ahalkiisii ama qaar ka mid ah qaraabadiisa ama walaalihiis ama waalidkiisba ay yihiin gaalo ma dareemi karo qof ay ku hareeraysan yihiin ama la macaamila 24 saac dad boqolkiiba boqol muslimiin ah ee waxa uun kali ah oo dareemi kara qofkii la macaamila gaalo marka aad la macaamisho gaalo badan ayaa dareemaysaa wanaagga ay leedahay in aad la macaamisho dad muslimiin ah oo ay kugu hareeraysan yihiin haddii kale waa in aad si joogto ah uga fikirtaa wax kasta tilaabo kasta oo aad qaado ama qof kula xiriira uu qaado tusaale ahaan ma isweydiinaysid markii aad soo gasho maqaayad Soomaali leedahay cuntada taalla talow ma xalaal baa mise waa xaaraan kama fikiraysid ama qof hebel talow ma muslim baa mise waa gaal markii aad Soomaali ku dhex jirto waxyaabaha noocaas waa waxa ugu dambeeya ee aad ka fikiraysid ama aad ka fikirid labo deeqsinimada aniga kulley inta aan ka arkay ma arkin mujtamac ka deeqsisan Soomaalida dhinac walba oo aad ka eegto waxaan ku sii karaa boqolaal tusaale oo ku saabsan deeqsinimada Soomaalida laakiin waa wax qof kasta oo Soomaali ah uu fahmi karo haddiina la dhihi lahay dunida deeqsinimaha lagu tartamo waxaan qiyaasayaa Soomaalida inay kaalimaha ugu horeeya geli doonaan haddaysa ayaguba ugu horeyn saddex qaraaba xiriiriska mujtamacaadka kale waxaad ku arkaysaa dad macnaha aysan u tirsanayn xataa adeeryaashiis ama adeeryaalkood abtiyaashood habaryar eedo iyo wixii la mid ah iska badaa ilmo adeer iyo wixii ka sii koreeya laakiin Soomaalidu inta badan waa dad qaraabada aad u xiriiriya iska daa ilmo adeer koowaad labaad saddexaad ilaa ay jilib iyo laf ilaa beel qabiil ayay isku xiriiriyaan Soomaalidu afar qabka iyo isla sareynta inkasta oo mararka qaar ay keento dhibaato kale laakiin qabka Soomaalidu waa dad aad u qab weyn waa dad aan loola imaan karin waxyaabaha qaar ee tabcaad badan loola yimaado oo ay u dulqaataan amaba ay ku qanacsan yihiin Soomaalidu waxyaabaha qaar ma aqbasho shan quraan jacaylka Soomaalidu sida ay u jecel yihiin quraanka iyo barashadiisa ayna isu baraan ama ilmahooda ugu tarbiyeeyaan inay koow quraanka bartaan ma aha wax laga helo xataa mujtamacaad badan oo muslimiin ah waxaana qiyaasayaa inay Soomaalidu ugu horeyso tabcaadka muslimka ah ee quraanka aad u barta haddii aysanba ahayn dadka ugu quraan barashada badan quraanka ma ku dhaqmaan ama markay bartaan kadib ma sii hayaan waa mas'alo gooni ah laakiin barashada quraanka marka hore Soomaalidu aad ayay ugu horeysaa lix xoola jacaylka xoolaha oo la hubo in ay ka mid yihiin ilaha dhaqaale ee adduunka aad loogu tiirsan yahay lana qiyaasayo in sanadaha soo socda aad ay qiimahooda u soo kordhi doonaan Soomaalidu waxa ay ka mid yihiin dadyawga adduunka ee xoolaha aad u jecel dhaqaalaystana toddobo dhiiranaanta qodobkan waxa ay iska ag dhow yihiin qodobkii qabka Soomaalida laakiin waxaan ula jeedaa Soomaalidu waa dad ku dhiirada waxyaabo badan oo dadyawga kale aysan ku dhiiran waana dad tijaabiya waxyaabo badan kana guulkeena sidaas darteed ayaad arkaysaa in dadka nala midka ee Afrikaanka ah in badan aan waxyaabo badan uga horeyno sideed nadaafadda jirka Soomaalida waxa aan ku jeclahay waa dad aad u nadaafad badan markii ay noqoto jirkooda iyo waxyaabaha la midka ah umana badna in qof Soomaali ah aad dhibsato nadaafad darro darteed laakiin marka ay timaado nadaafadda dhanka kale ee dhulka jidadka ama guryaha iyo waxyaabaha la mid ah Soomaalida waa looga horeeyaa sagaal isu gurmashada Soomaalidu in ay isjecel yihiin iyo in kale waxaad ogaanaysaa marka ay isu gurmanayaan toban oo ah qodobka aan ugu sii jecelahay Soomaalida waa hiilada ama danaanada lagama yaabo in qof Soomaali ah agtiisa inta lagu dulmiyo oo ka aamuso ama shib ka yiraahdo marka uu ugu yar yahay haddii uu ka celin qofkaas ama uusan idin celin wuxuu afka ka dhahayaa war iska celi umana badna duruuf kasta oo timaada qof Soomaali ah in uu kugu fiirsado ayadoo lagu dhibaateynayo qofkaas qabiilku raba ka soo jeedo isku qabiil ahaada yaana isku qabiil ahaanin isjeclaada isnacbaada kulli aniga intaan ka arkay intaasoo marna igu dhacday qofka Soomaaligu in uu ku hiiliyo ayaa jirta markii aad u baahan tahay